Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Casharkan waxaan ku eegaynaa sida loo waaweyneeyo qoraalka Windows 10-ka ee kombiyuutarkaaga, macnaha shaashada kombiyuutarkaada qoraalkeeda. Markaad sida ugu habboonba kombiyuutarka wuxuu fiiriyaa kombiyuutarkaas awoodiisa oo displayga wax soo saarka. Marka wuxuu sameeyeysaa Windows meesha sida ugu habboon oo macnaha screenkaas uu wax kugu soo saari kara ayuu kuu sameeyaa si automatic ah. Marka sida ugu habboon waxaa laga yaabaa inayn adiga kuu habboonayn oo adiga aad rabtid taxi ama qoraalka markaa kuu soo baxaya ka waaweyn inaad aragtid ama ka yaryar uu kugu waaweyn yahay. Marka awoodaan u leedahay inaad waaweynaysid sida hadda halkan markaan gujiyo qoraalkan applicationada inuu igu yaryaryahay waa laga yaabaa inuu igu waaweyn yahay waa laga yaabaa. Marka si aan taas u waaweyneeyo ama u yaryareeyo waxaad taabanaysaa start, waxaad tegaysaa settings markaad tagtid waxaad tegaysaa ease of access. meeshaan odhanaysaa make the text bigger, qoraalka waaweyney ayaad kor u qaadaysaa oo markaad hadda 100% u joogaa marka kor baad u qaadaysaa waa ka sii badninaysaa. markaad sii badisid micnaheeda waxa weeye qoraalka waa waaweynaanayaa. marka meesha kugu habboon qoraalka kugu habboon ayaad geynaysaa. markaad geysid apply ayaa odhanaysaa. marka haddaan hadda fiiriyo qoraalkii waa waaweynaaday. marka hadduu igu waaweyn yahay dib aan u soo celinayaa, hadduu weli yaryar yahana koraan usii qaadayaa oo meeshii marka ugu habboon ayaan geynayaa qoraalkii. haddii aan rabo taasi waa qoraalka, haddii aan rabo wax kasta oo soo baxaya inaan yaryareeyo ama waaweyneeyo meeshaan odhanaysa make everything bigger ayaan kor u qaadayaa. haddaan kor u qaado hadda wuxuu joogaa 100%. marka haddaan kor u qaado waa sii waaweynaanayaa, haddaan yareeyana wuu sii yaryaraanaya. haddaan 100% ka dhigo 150 macnaheeda marka waa waaweynaanayaa. fartii iyo qoraalkii wax kasta wuu weyneynayaa oo saarnaa meesha. ma ahan qoraalka kaliya inuu weyneynayo, wuxuu kala weyneynayaa sawiradii iyo waxyaalihii kale oo markaas settingii kombiyuutarka. haddaan yareeyana wuu yareynayaa. marka labadaasi ayaa samayn kartaa. waxaad samayn kartaa wax kasta waa weyneyn kartaa. farta ama qoraalka kaliyana waa waaweyneyn kartaa ama waa yaryareyn kartaa. marka sidii kugu habboon aad geysanaysaa, adiga sidee kugu anfacda. markaa geysatid apply odhanaysaa. kabacdi waxa weeye saas ayaa loo waaweyneeyaa farta qoraalka Windows 10-ka amase wax kasta oo soo saaraya oo wax kasta oo settingka iyo applicationska iyo waxyaalahaas oo dhan saas ayaa loo sameeyaa. marka waxaa kaloo jira qoraalka waa weynaanaya ama yaryaraanaya ma ahan qoraalka oo applicationada, waa qoraalka oo Windowska, waa Windows settingka qoraalkiisa. oo hadda sida hadda halkan ka muuqata qoraalkaygan waa waaweyn yahay, laakiin haddaan tago application qoraal application sida Microsoft Word oo kale sida muuqata waa waaweyn yihiin waxyaalihii markaas applicationka settingkiisa ah. laakiin haddaan qoraal ku qoro ma waaweynaanayo sidii loogu talagalay ahaanaya, waayo application kasta qoraalkiisa adiga awood u leynaya waaweynay sidoo yaraysid. oo macnaha font waaye, qoraal ma aha, setting ma aha, waa qoraal caadi oo application ah. marka kaas iyo iskuma xirna kan meesha settingka waa kala duwan yihiin. sidoo kale Internet Explorer ama Microsoft Edge ama Chrome mid walba si gaar ayaa u waaweyneyn kara qoraalkiisa oo iskuma xirna. qoraalkan fartaan ka waaweyneeyey meesha settingka iyo applicationka qoraalkiisa waa kala duwan yihiin oo waxaa laga yaabaa applicationka qoraalkiisa inuu override ku sameeyo kan oo caadiga ah oo settingkan waa weyneynayn. marka taas waxay ahayd sida loo weyneeyo farta qoraalka kombiyuutarka oo ama loo yaryareeyo sidii adiga kugu habboon meesha kugu habboon aad geysan karid sida loo sameeyo. halkaas ku joojinayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.